Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo wareysi bixiyay ayaa ka hadlay iska horimaad saaka ka dhacay agagaarka iskoyska Banaadir qaybta xigta degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Afhayeenka ayaa shaaciyay in uu dagaalka u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed isla markaana ay ku baxeen ciidamada booliiska kadibna rasaas lagu soo furay sida uu isagu hadalka u dhigay. Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sidoo kale tilmaamay in ugu dambeyn dhulka lagu muransan yahay ee sababay dagaalka ay la wareegeen ciidamada ammaanka si loo dejiyo guud ahaan xaaladda halkaasi. Sidoo kale waxa uu afhayeenku intaasi ku sii daray in gurigan arrintiisu ay ku jirto maxkamadda gobolka Banaadir dhawaanna la soo gabagabayn doono muranka ka dhashay lahaanshihiisa. saaka aroortii ayaa isgoyska Banaadir guri u dhow lagu maleeshiyaad isku qabsadeen ayagoo isku haysta mas'uuliyadda dhulkaas oo information-ka ay leeyihiin la ii sheegay in maxkamaddu ay weli taalo gartiisa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku baxay goobtii tagay isla markiina waxaa laga kala diray maleeshiyaadkii ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee gacanta ku haya hadda goobtuna waa ammaan dadyow Soomaaliyeed ku waxyeeloway xabadii la isdhaafsanay ayaguna kuwii dhaawacaan isbitaalka yeelan intan Allah u naxariisto insha Allah wali baarista ayaa wadna. Marka tira ahaan intee la eg tahay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dhinacyadii ishayay soo gaaray? Wallahi goob biisi ay ahayd waa goob ganacsi waa suuq yar oo dad xoogsata ay joogaan xilliga ay wax dhacayeen waa xilli aloora qof walbana wuxuu na raadinayay marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed goobta waxay soo gaareen markay xabadaha dhaceen ilaa haddana ciidanku waxay tiri koob ku jiraan dad xaafado laga keenay jira ilaa iyo 5 qofood ku waxyeeloway 3 sarkaal booliis ka mid ah dadkii dhaxgalay xabadii socday ka mid saraakiil booliis ay yihiin marka iyo ilaa 2 qof dhimasho goobta laga arkay inta kalena weli waxaan ku jirnaa raadinta sababtoo ah eheladii isbitaalada kala duwan ee magaalada ay qaadan karaan weli saraakiisha booliiska ku jirta baaris waa tahay marka ma jiraan dad loo soo qabqabtay ee falkaasi dhacay dhulka la isku haysto weli ma kala cadda oo maxkamaddu yaalaa xukunkiisa iyo sharcigiisna waxaa iska leh maxkamadda laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed saaka ku baxeen maleeshiyaadkii kala carreen ilaa hadda ku daba taagan yihiin baarisan wala ciidanka booliiska Soomaaliyeed way soo kordhanay ilaa saacadaha soo socda inay soo wadaagi doonaan hadii Allah waa mahadsan tahay ciidamada waxaad ku sheegtay in ay yihiin maleeshiyo marka wararka qaarna waxa ay tibaaxayaan in ay yihiin ciidamo dawladda ka wada tirsan marka taasi maxaad ka leedahay wariga adiga haddii qof bariis wata aad aragto macnaheedu ma aha inuu askari dawlad yahay askari dawlad waa heykal iyo sharci iyo nidaam uu leeyahay askariga talis uu ka amar qaato uu leeyahay aniga hadda booliisaan ahay haddii aan dhar tuuta gashado macnaheedu ma aha inaan militariga ka tirsanahay marka waxaan u malaynayaa dadku inay isku qaldayaan dariiskan waxaa qaata qof walba oo dan leh oo hool leh sida hadda dunyada ay ka dhacdaba goob kastoo dunyada ka mid ahna dadka dhibaatada geystay waxay qaataan tuutaas marka macnaheedu ma aha in dadku meesha isku direeyeen ciidan dawlad ciidanka dawladuna waa la yaqaanaa xarumay leeyihiin ay degan yihiin talisay leeyihiin ka amar qaataan haddaba booliiska Soomaaliyeed markuu goobta tagay dadweynaha waa yaqaanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed marka ciidamadii saaka meesha ku dagaalamay maba ahan gebi ahaantoodba ciidamo ka tirsan dawladda gebi ahaantood ma aha ciidamo ka tirsan dawladda waa maleeshiyaad isarursaday qof iyo laba oo ciidanka ka tirsano fasax ku maqnaa oo magaalada fasax u joogay ama meelo kale ka yimaado way dhici kartaa in laga dhax helo laakiin ma aha ciidan dawli ah oo sarifka militariga og yahay uu soo diray oo uu yiri taga goobtaas ee isku xabadeeya ma aha taas ciidan taliyaha militariga ka wareysan doonta haddii militariga ay sahan